muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa sii kordhayay dhibaatooyinka loo geysto Soomaalida ku nool gudaha waddanka South Africa iyadoo lagu jiro bilihii ugu dambeeyay sanadka. weeraradan loo geysto muwaadiniinta Soomaaliyeed ayaa waxay ka kala dhacaan gobolada kala Limpopo, Cape Town, Johannesburg iyo waliba BE, waxaana tirada ganacsatada Soomaaliyeed ee weeraradaas ku dhintay ay gaarayaan ilaa iyo 10 ruux labadii bil ee la soo dhaafay, iyadoo ay dhaawacyada ay kor u dhaafayaan intaasi. qaar ka mid ah ganacsatada Soomaaliyeed oo la hadlayay TV-ga caalamiga ee Royal ayaa walaac xooggan waxay ka muujiyeen falalkan burcad South Africaanka ay u geysanayaan ganacsatada Soomaaliyeed. waa jirtaa dhibaatooyin oo soo gaarta ummadda Soomaaliyeed sanadka xilliga la gaaro bishan kooda ay tahay oo la dhibaateeyo waa sax oo aniga meelahaas oo ku leeyahay waan arkaa wallahi abu dilalka way iska farabadan maalmo baa dhibaatooyin iyo ayaa waddanka ummadda Soomaaliyeed marka aad iyo aad baan uga xunaa Yaasiin Cali Qawaar oo ka mid ah xubnaha u dhaqdhaqaaqa jaaliyadda Soomaaliyeed ee Cape Town ayaa waxa uu Royal TV u sheegay in sanad walba marka la gaaro bilaha u dambeeya ay weerarada laba jibaaraan kooxaha burcad South Africaanka daran hadda dhibaatooyinka soo gaaro ummadda Soomaaliyeed sida aad ama website-yada ama aad kala socotaan idaacadaha oo arkaysa dhibaatooyinka dadka la daawaco marka ummadda Soomaaliyeed ee joogto gobolka Western Cape waxaan ugu baaqaynaa in ay la xiriiraan saldhig ugu dhow ay ka qaataan waxa jiro sector commanderada ee meelaha ka shaqeeyo in lambaradooda ay helaan si hadii markii ay u arkaan ama qatar inay soo gaarayso si ay ula xiriiraan booliska ugu dhow markaas ugu dhow ayaan kula talinayaa ummadda Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Western Cape. ciidamada booliska South Africa ayaa waxay dadaal xooggan ugu jiraan inay xakameeyaan arrintaasi wallow aysan u suurtagelin ilaa iyo iminka. Cabdiraxmaan Cabdullaahi Amaan Cadde, telefishinka caalamiga ee Royal TV, South Africa.